adduunkan xaaladiisa maalin waliba waa nooc waxaan ahay aqoon iyo rajo haddana ay u dheer tahay gabarnimo waxaan waxbarasho ka helay almustaqiim mar waliba ayaga ayaa garab ii ah waa subax hore qaar annaga naga mid ah kama walwalsana maalintooda halka kuwa kale ay ka walwalsayn xitaa maalmaha soo socda aniga cidna iima maqna ceelna iima qodna balse adigu waxaad ku tashataa muruqaaga ama waxaa jira waalid iyo walaalo adiga garab ku ah waa hubaal haddii aad qabow ku jirto in qof qoraxda uu ku taagan yahay maalmaha caadiga waxa iga murug badan maalmaha ay dadka faraxsan yihiin sida ramadaanka iyo ciida oo xitaa haddii ay dadka faraxsan yihiin aniga murug igu dhalato iguna dhamaato almustaqiim ayaa isa saartay mas'uuliyad qof walba uusan xamili karin cabdixakiim isaga oo ku noolaa dalka Mareykanka ayuu u yimid caawinta caruurta agoonta iyo rajada isugu jira si maalmahooda adduunka aysan murug ugu dhamaysan anigoo ah cabdixakiim cabaas iimaan ah gudoomiyaha hay'adda almustaqiim foundation ku sugan iskuulka almustaqiim orphanage school waxaan rabaa inaan ka hadlo nolosha iyo xaaladda sida ay tahay sida xaqiiqda anigoo haysto heli kara nolol qurux badan ku nool wadanka Mareykanka ayaan waxaan ka seexan waayay oo hurdada ii diiday dayaca waxbarasho la'aanta dhibaatooyinka haysta caruurta agoonta ah ee ku nool halkan xilligaas wixii ka dambeeyay waxaan go'aansaday inaan mataqaanaa hawshan agoonta aan ka shaqeeyo waxaa maskaxdayda ku soo dhacday haddii adiga maanta positionkaas aad joogi lahayd ay agoonta joogto maxaa kugu dhici lahay maxaa dareemi lahayd sidaas ayaa waxay ugu kaliftay inaan adduunyadayda dhinacaan iska dhigo oo aan doorto aakhiro si aan hawshaas mataqaanaa aan agoonta wax u barno maanta caruur aad u fara badan ayaa iskuulka agoonta almustaqiim wax ka barato baahiyadooda way fara badan yihiin waxbarashadooda dharkooda caafimaadkooda cuntadooda dhinac kasta ay caawinaad uga baahan yihiin marka insha Allah cid kasta oo nolol raaxo badan ku nool waxaan ka codsanaynaa in ay raaxadeeda dib u dhigato u raaxayso caruurta agoonta danyarta oo aan awoodin in ay wax bartaan si ay waxbarasho u helaan caruurta hadii wax la baro horumar badan ayaa imaanaya insha Allah waan ogahay inaad ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ee damiirka uu ku haray balse waxaad isweydiinaysaa sida aad uga qayb qaadan karto caawinta caruurtan aniga waxaan rabaa oo haddana ka fakaraa qof damaanada qaad waxbarashadeeda inta aan wax ka baranayo aniga iyo kuwa ugu fikirka ah in la caawiyo maxaa ku daran oo aad ka fikirtaa aniga waxaan ahay markaan qof la karo inuu sii bilaabo soonka basharawan haddana waxaa isweydiiyaa halkee ka keentaa waxa ku afurtid waan ogahay inaad ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ee wili damiirka uu ku haray waxa aad isweydiinaysana waxa ay tahay kaliya sida aad uga qayb qaadan lahayd baahiyahooda gaarka sida aad u dabooli lahayd aniga udigay meedin daadan ayaan jira kaliya waxa ka fikiraa adii aabaaga wada nolol lahayd waad faraxdaad waxaan rabaa inaan arko anoo ciidaya maalin ciid ah uma malaynayo inaan sii wadi karo barnaamijkan sababtoo ah qof waliba oo damiir leh ma sii daawan karo haddii aad jeceshahay inaad wax baxsato oo aad saacido caruurtan waxaa gacanta ku haysa almustaqiim la xiriir almustaqiim foundation waxaan adiga wax weyn kula ahayn ayaa iyaga wax la ah ee isku day inaad bedesho nolosha hal cunug oo aad bixiso waxbarashadiisa inta noloshiisa ka harsan